السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكنالكي ساعة سوفتوير وآلابات كلا سوان جرتين عشرة ku saabsan dhanka ICT-ga iyo tiknoolajiyada. Aad iyo aad ayaan ugu horreyn idinka raaligelinaynaa sidaan idinkala habsaanay koorsooyinkii aanu bilownay ee aad ku kala dooranayseen labada course ee kala ah editing video iyo Photoshop design. Markii aanu eegnay baaqii aanu dirnay ama maxay ahaydtay ogeysiiskii aanu u dirnay dadka ama bulshada idil ahaanba ku xidhan kanaalka SaaS Software, waxay aad cudud u saareen ama xoog u saareen in loo soo hormariyo video editing. Insha Allahu Taala intan waxaan ku soo qaadaynaa aynu maanta bilaabi doonaa isla markaas video editing ama koorasyadii ama courseski editing-ka ahaa ayaa markaa halkaa inooga bilaamaya annagoo ku soconaa dadka optionalkooda ama optionkooda aan ku socono oo maxay tahay markaa u tixgelinayno ayaanu idin bilaabi doonaa insha Allah. Courseska ay dadku aad ugu soo horumariyeen aad u jeclaysteen in loo soo horumariyo insha Allahu Taala. Sidaad aragtaan halkan waxaa ku qoran editing courses ayaan bilaabi doonaa insha Allah. Marka editing coursesku laba ayuu kala baxaa, mid codka lagu qurxinayo oo lagu googeynayo isla markaasna lagaga saarayo qaladaadka iyo maxay tahay shuquuqdii hawada, iyo mid maxay tahay videoyadii la isku dhexgelinayo la yaryaraynayo. Sidaad aragto ka bidixda ka xiga waxaa halkan ku aragtaa hirar codada ah, waxaa loo yaqaanaa Adobe Audition. Ka midigta ka xigana waxaad ku aragtaa video ama layers videoya ah oo la isku dhisan garaynayo ama maxay tahay la isku dhidkaraynayo isla markaana video qurux badan laga soo saarayo. Isagana waxaa la yaabaa video editing gaar ahaan magaciisa khaaska ah. Video editing way fara badan yihiin, waxaa loogu yeedhaa Filmora ama Wondershare Filmora ayaa loogu yeedhaa. Marka waxaanu soo horreysiinaynaa maadaama editingku ka kooban yahay cod iyo video. Ugu horreynta waxaanu soo horreysiinaynaa sida codka loo hagaajiyo isla markaas ayaan u gudbi doonaa insha Allahu Taala video editing-ka iyo sidii videoyada loo hagaajinayay. Adobe Audition haddaan ku yar horeyno marka hore programkan waxaa iskale shirkadda leh iyaduna video Photoshop design-ka soo saarta iyo dhammaan waxyaabo fara badan oo Adobe u horeyso. Adobe Photoshop, Adobe Audition, Adobe kasta markaad aragto Adobe waa shirkad maxay tahay soo saarta programada wax lagu hagaajisto ama ha ahaato design ama ha ahaato mid editing ama ha ahaato nooc kasta ha ahaato ayaa iskale. Isla markaana waa program ay u isticmaalaan bulshooyin kala duwan dhanka social media-ha gaar ahaana maxay tahay waxaa si xooga u isticmaashaa qaybta BBC-da oo codka aad ugu hagaajisa. Wax fara badanna waa uu leeyahay maxay ahaydtay oo waxtar leh runtiina ku soo jiidanaya. Marka insha Allahu Taala kaas ayaynu bilaabi doonaa haddii Allah awoodo la idmo oo aynu bilaabi doonaa insha Allah. Sidaad u aragto iminka marka halkan waxa uu leeyahay introduction Adobe Audition. What is the Adobe Audition and what does it do? Waxa weeye muxuu yahay Adobe Audition iyo muxuu qabtaa isagu. Wuxuu qabtaa anigii inoo sheegay iminka sida muuqaalka nooga muuqata. Halkan waxaa inooga muuqda hirar
kaasoo muujinaya voice-kii qofka iyo halkii lagu edit gareynayo codka. Programku waxa uu qabtaa in codka lagu hagaajiyo, lagaga saaro qaladaadka, isla markaasna maxay ahayd iyo hawooyinkii shuquuqda aan loo baahnayn, isla markaana la save garaysto ayaa uu qabtaa. Codkaas ayuu aad ugu fiican yahay in lagu edit gareeyo oo qaladaadka laga saaro iyo space-ka ama meelaha bannaan ee codka u dhexdhexaysa uu qofku ku hakanayo ama ku nasanayo markuu wax duubayo ayaa uu qabtaa. Waad aragtaa iminka halkan sidaad aragto cod ayaa lagu duubay. Codka wuxuu leeyahay meel toos ah ama maxay ahayd falaad oo dhiibsan oo aan iyadu lahayn hirar, iyo meel hirar leh ayay u kala qaybsamaan. Marka meesha hirarka leh waxay muujinaysaa in halkaa voice ka jiro ama cod ka jiro. Meesha kale maxay ahayd tooska ah ama smooth-ka ah iyaduna wax codahay kama jiro, waa space labadii hir ee codka u dhexeeya. Hadhow kuwaas ayaynu ku arki doonaa inagoo ka dhex saarayna oo codku noqonayo mid isku taxan oo qurux badan oo qofka soo jiidasho u yeelaya insha Allahu tacaala. Maanta casharkeena waxaynu ku joojinaynaa intaa hordhaca. waxaa inoo bilaabmi doona markaa casharkiisii koowaad insha Allahu tacaala ayaa inoo bilaabmi doona haddii Allah awood leedmo. idil ahaantiinba aad iyo aad ayaan idin salaamayaa. waxaana idila socodsiinaya casharka anigoo Casiir Aadan Salamaana. kanaalkuna waa Saac Software ee Hamoogaan. idil ahaanba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.